السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waa habeenimo Arbaca Khamiis ay soo galayso taariikhduna waxay ku beegan tahay 1 bisha Luulyo sanadka 2026 haddaba barnaamijku waa kii saddexaad aan idiin soo gudbinayno maantay qodobada barnaamijka aynu ku soo qaadanayno waxaa ka mid noqon doona Mareykanka oo la sheegayo inuu qorsheeyay ciidankiisa inuu kala baxo Saudi Arabia kadib markii uu soo kala dhex galay Sacuudiga iyo Mareykanka khilaaf la sheegay inuu aad u sii xoogaysanayo marba marka ka dambaysa faahfaahinta waxa la isku khilaafay iyo Sacuudigu waxa ay Mareykanku ka cabanayaan iyo Mareykanku waxa uu ka tabanayo warbixin cajiiba oo laga qoray waan idin hayaa shirkii ka socday magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo warar hordhaca caawa laga soo saaray la leeyahay waxoogaa is afgarada ayaa laga gaaray shirka qodob noocee ayaa la isku afgartay iyana barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa sheekada kale ugu cajiibsan dhul ay leeyihiin dad Falastiiniyiin ah ayay dawladda Israa'iil waxay siisay Mareykanka waxayna ku tiri ka dhiso safaarad Mareykankana waa aqbalay Falastiiniyiintii oo qaylinaya haddaba sheeko la yaab leh oo ka taagan magaalada barakaysan ee Qudus ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa qodobada ayaynu barnaamijka idinku haynaa waa barnaamijkeennii habeenimo inta aan ku jirnana wixii akhbaar ee soo kordhawaan idin la socodsiin doonaa haddaba barnaamijkeena dhowr arrimood oo muhiim ah oo soo kordhay ayaynu barnaamijka ku faahfaahinayna haddaba waxaynu ku bilaabaynaa Sacuudiga iyo Mareykanka Sacuudiga iyo Mareykanka muddo ku dhow 50 sano in ka badan waxay ahaayeen saaxiibo waxa la jiray naftu baa ka dhaxaysa maqli jirtay labada waa saaxiib nafta ka dhaxaysa Sacuudiga iyo Mareykan wax walba Sacuudigu cid kale xataa hubka ma soo gato meel kale inta aad hubka ma soo gadan jirin ilaa Mareykanka dadka uu ogolaado haday tahay Ingiriis iyo Faransiis iyo marmar wax ka soo iibsan la dhaaray galbeed ahaan laakiin inta kale Mareykanku ku tiirsan iyaguna Mareykankaas lacagtooda dhigtaan bangiyadooda waxooda maalgashigooda waa aragteen sheekadii dagaalkii Iran wax badan oo marka bedelay oo banaanka keenay Sacuudigu intaas waxay u sameeyeen ninkanu hadii dhibaato dhacdo gobolka uu idin difaacaya waxay ogaadeen ninkan inuu wax difaaci kara iska dhaafay lafiisa saldhigyadii uu joogo ilaashan waayo nagta laga saaray khaliijka oo dhan marka saasa loo garaacay Sacuudigu way fakareen marka waxay yiraahdeen ilaa intee ninkan wada joogi kartaan ma wada joogi kartaan idinka wuxuu rabaa inuu dhiiqay loo haydin galiyo saldhigyadiina ka weeraraya maartay Iran ruuxba ka weerarayna difaac kali aw qalabkii wax walba soo dhaca dhab u siinaya aalhayda oo lacagta malaayiinta dollar nooga qaada markay sheekadii marka wareertay waataan xadaa xusuusataan barnaamijyadeedii hore shalay iyo waxaan ku soo qaadanay Sacuudigii oo Chinese-ka iska dhiiba misakiisa ku ahaa barnaamijkii saakay mu ahaa kii galabtay adigu barnaamijyadeedii hore ku soo qaatay wala socotaan Sacuudiga Chinese iska dhiibaayeen nimankii markii waa xanaaqeen Amerika buuqaasa taagan Sacuudigii iyo Mareykan waa la kala fakaday ayaa la leeyahay haddaba aan idin soo wararkii ugu waaweynaa majallada la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa qoraysa caawa waxay leedahay mas'uuliyiin Mareykana ayaa laga soo xigtay Washington inay daraasad ku sameynayso sidii ay u yareyn lahayd joogitaankeeda militariga ee Sacuudiga arintaana waxay ka dambaysaa la leeyahay khilaaf soo kala dhex galay Mareykanka iyo boqortooyada Sacuudiga arinta ku saabsan waliba waxay salka ku haysaa dagaalka Iran haddaba warbixintan waxaa laga soo xigtay journalka weyn ee Mareykanka ee la yiraahdo Wall Street Journal wuxuu leeyahay mas'uuliyiin Mareykana ayaa xaqiijiyay in Washington ay militarigeeda kala bixi doonto Sacuudiga markii khilaaf uu soo kala dhex galay iyaga iyo Sacuudiga wargeysku wuxuu sheegay in Mareykanka uu markaasi aritan ay aad uga fakarayaan
oo daraasad ay ku wadaan. waxyaabaha la isku qabtay waxaa ka mid ah in Donald Trump uu si weyn uga carooday markii Sacuudiga ay diideen saldhigga la yiraahdo Amiir Sultan ee ciidamada cirka Sacuudiga in markaa Mareykanku ay jawaab siiyaan Iran oo halka weeraro ay ka qaadaan. haddaba Riyadh iyo Mareykan ayaa isku khilaafay arrintaas, waxaana la sheegay in arrintanu ay keentay in markaa isfahmi weyn uu halkaa ka dhashay. waxba dhulkayga ha ka weerarin Iran, waxa ay soo tuurto macalin kartaa may maxaad uga weeraraysaa marka? haddii wixii la soo tuur haddaa weerarto wixii lagu soo jawaabana aadan iga celin karin, hadee maxaa marka dagaal anigu galay tiri Sacuudiga waa weerartay haddii oo nala soo hujuumo waa celin kartaa soo maaha. hay aan aragno saldhigyadaada ka celi. daroonka imaanaysa nagtee ka saaray, gantaalka imaanay nagtu ka saaray, maxaa celisa marka? waxba maada celin. marka hadda sheekadu waxay ka sii dartay waliba Sacuudigii marka waxay ogaadeen Mareykan kaligiis inuusan meesha waxba ka jirin. China ay aadeen, waa taan horeedii kugu sheegay. dhaqaalaha, ganacsiga, tiknoolajiyada, wax kasta waxaasoo dhan heshiisyo ah ayay China u aadeen. waa isku kiin dhiibnaa wax kale oo aan hayno male. marka macalinka weynaa marka halkaas xiisada markaan waxaa leeyahay Sacuudiguna mar hadduu bilaabo khaliijkii kale kulli waxa waaye asaga aabba u ah khaliijka kulligood way soconayaan. marka nin isku dhiiba Iran iyo nin isku dhiiba China iyo la noqonaa macalinka weyn meesha waa uga dhamaataa leey. marka sheekadaas ayaduna halkaasay maraysaa. qodobka kale muhiimka ah ee caawa wararka soo kordhay waxaa ka mid ah shirkii Dooxa ka socday. Iran waxay tiri anagu nimanka arki mayno, waa la isku soo dhaweeyay. marka waxaa dhaca leeyahay kulamo aan la xaqiijinin marka oo la isaga kala dab qaaday dhinacyada. laakiin Iran waxay tiri marka hore waxaan ka hadlaynaa lacagta nala ka haysto gacantana loogu shubo. heshiiskii hore in nala siinayo ay ahayd. heshiiskii hore marka waxaa lagu heshiiyey 12 bilyan oo dollar in la siiyo. lacagtu waa 4 bilyan laga haysto, marka 12 bilyan in la siiyo. 12kii hadda waa la isaga daba yimid. heshiiskii ugu dambeeyay waxaa lagu heshiiyey 6 bilyan la idin siinaya. 6 bilyan waxaa lagu qasbay annaga wax nooga iibsanaysiin. war waxaas ugu jiraan waxay nasiiya. hadda marka waxaa leeyahay caawa warar soo kordhay oo warbaahinta Qatar ay ka helayso. waxaa la leeyahay xogaa waa la is afgartay. maxaa la isku afgartay? macalinka weyn wuxuu yidhi 3 bilyan oo dollar ayaan bixinayaa. haye laakiin cash uma bixinayo. 3 bilyan kala bar annaga nooga iibsada cunto iyo dawo, kala barka kalena meel kale cunto iyo dawo uga iibsada. waxa kaliya leediin ogolyaa waa cunto iyo dawo iyo alaabaha wadankiinu u baahan yahay inaad ku soo gadataan. waxa laga cararayo wax waaye lacagti marka farta aad ku dhigtaan inaad maaragtay hub iyo waxyaabo kale ku soo gadataan. hub haddaa soo gadataan lacagtiina kale haystaan ku soo gata, laakiin lacagtan saasaa loo sameynay. marka 3 bilyan. marka warkan weli marka xaqiiq maaha, warbaahinta loo soo dusiyay. Iran marka waa aqbashaa leeyahay, laakiin shuruudo kala ku xiran. alaabtiinu inay tayo leedahay waa la baarayaa. alaabtiinu inay lacag tahay alaabta kala soo gadanayno adinka ma noo tilmaamaysaa. marka sheekadii marinbiyoodka Hormuz iyo wixii oo dhan Iran waxay istaagtay marka hore lacagteen meel hala saaro. Hormuztan baasho maato dhan iska daba wareega waaba ku heshiinay lacagtaana la siiyay. nimanka indhaashteen nimanka caadi ma. haddaba marka ardaydu soo warka caawa soo kordhay jariirada la yiraahdo Axios ee Mareykanka laga leeyahay ayaa caawa heshay warar xog ah. waxay leedahay Washington iyo Tehran waxay isku fahmeen oo isla meel dhigeen in dufcadda ugu horeysa lacagii ka xanibnaa loo fasaxayo Iran. haddaba Witkoff iyo Kushner ayaa waxay isku dayayaan leeyahay inay arrintaasi xaliyaan oo lacagaha loogu talagalay
in markaa loo fasaxo. haddaba warbixinta qaybta dambe waxaa lagu leeyahay ilaa 3 bilyan oo dollar oo lacagtii laga haystay Iiraan ah ayaa la doonayaa in la fasaxo, balse waxaa la sheegayaa inay ku iibsan karto alaabooyinka aasaasiga sida cuntada iyo dawada. qayb ka mid ah lacagtaasna inay Mareykanka wax uga iibsanayso ayaa la leeyahay. marka sheekadaasu waa sheeko kale oo weli tafaasiisheedii aysan soo bixin, laakiin waa la arki doonaa kolay wixii akhbaar ay arrinkaa ka soo kordha. arrinka kale ee la yaab kale waxay tahay magaalada Qudus waxaa ka taagan arrinaa ka taagan dhul Israa'iil ay mar hore Falastiiniyiinta ka boobtay oo ay ka xoogtay ayay hadda waxay tiri waxaan siinayaa Mareykanka. Mareykanka siinaya si uu halkaa uga dhisto safaaradiisa rasmiga ee joogtada ah meesha uga dhisto. 2017 ayaa safaaradda Mareykanka Tel Aviv waxaa ka soo raray Trump. wuxuu yiri halkaasay safaaraddu ku shaqaynaysaa, caasimad u aqoonsanahay Qudus, waxaan u aqoonsanahay Israa'iil. adduunkii oo dhan oo qaylinayo halkaas soo degay. dhul ma haysan marka meel ayay deganeen. hadda marka waxaa leeyahay dhulkaanay dhisanaysaa waa kaas. sharciga marka magaalada wuxuu dhigayaa inaysan dhul safaaradda laga gedi karin, laakiin siisma macnaheeda iska ah. macnaha maxaa leeyahay sanadkii oo dhan $1 ayay ku ijaarantay. marka 99 sano liis ahaa la siinayaa, warqaday ku qoranta inay dhulka iyagu ay u kiraysan tahay oo aan laga qaadi karin. $99 bas dhibay 99 sano deganaane macnaheedu siisma waxba ma dhaamo moogtay. marka nidaam noocaas marka dhulkan Falastiiniyiinta iska lahaa ayaa aad u qaylinaya. Mustafa Barghouthi in la yiraahdo iyo rag kale oo Falastiiniyiin waxay leeyihiin adduunkiyo indhihiisu shanta yihiin ayaa dhulkeeni inta la boobay ayaa haddana dunidii maaragtay daawanaysa ayaa Mareykan leeyahay anaa dhisanaya dhulkan ayadoo annaga aan waxbana la ka weydiinay oo yaa iska lahaa dhulkan waa ka gadanayna xataa aan la dhahayn. marka maalin cad aan la boobay leeyahay. marka qaanuun dawli leh, qaanuunkii caalamiga ah adduunkan qaanuun miyaa jira iyo sharci sidii la rabaa loo dhigay leeyahay. Mareykan wuxuu raba iyo Israa'iil qaabkay rabaan ay qaanuunka ka dhigaan qaabkay raba bedelay. ninka tabar layno qaanuunka mar walba ku saxdaa sidiisaba. marka sheekadan waali waaye iyaduna way soo korortay. haddaba arrin tuso wargeyska la yiraahdo Al-Qudus ayaa qoray warbixin uu leeyahay Israa'iil waxay Washington siisay dhul ay kala wareegtay Falastiiniyiinta si ay halkaa uga dhistaan safaarad magaalada Qudus. وجد سفارة إنك كردستان حفلة والله قبت وزير كارمها دبدا إسرائيل يا سفير كمريكا وفرد إسرائيل أيا دوكومنتية إسكوريجينية أيا ورقات إسكوريجينية لولكية لسراينا إليهن مريكا هاوش أساك سعطالكاس واحد كتب قيلين أي ملك فلسطين باقيلناس وردول كان أننا مركي ورانا لكبوبي أننا إشكالها يا دقيساني سمالك marka adduun iyo xaalkiisa la yiraahdaa waan u ducaynaynaa dadka Falastiiniyiinta masaakiinta in Ilaahay dulmiga iyo dhibaatada lagu hayo uu ka dulqaado. marka idinkuna u duceeya. barnaamijkayga caawana waa nagaynta la garay oo share garay barnaamijka asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.